magaalada London hooyo Soomaaliyeed oo leh 7 caruur ah ayaa kamid ah tagaasilayaasha shirkadda Uber-ka ee magaalada London ka shaqeeya. hooyadan oo lagu magacaabo Faiza Cabdi Ereg ayaa wariyaha VOA ee London Ridwaan Xaaji Cabdiwale waxay uga warantay shaqada Uber-ka iyo waliba waxa ku dhaliyay inay qabato. Assalaamu calaykum, magacayga waa Faiza Cabdi Ereg, waxaan u shaqeeyaa taxi company-ga Uber. waxaa leeyahay 7 caruur ah marka kulay hadda waa ku faraxsanahay shaqadeeda. shaqooyinka kale aan qaban jiray iiga fududahay sida aan u arko waa shaqo maaragtay oo u fudud macnaha hooyada sida aan dareemayo waqtiga aragtid aad dooran kartid inta waqtiga aragtid aad shaqeyn kartid maaragtay maanta aad rabid inaad shaqeysid gurigaaga joogi kartid. maalintii iskuul ranaan sameeyaa minibus aan wadaa subaxii ilmaha oo jiran ayaan iskoolada geeyaa dawladda galabtiina waa ka soo wadaa marka jaaniska yarka aan haysto waxa waaye hooyo guri ilmo sugaya waa ahay marka intaas oo gurigeyga ka hagaag sameystaa. kadibna weekendiyaasha labada sabtida iyo xadda iyo jimcaha galabteeda waxaan u shaqeeyaa Uber-aas waqti badan siiyaa hadda ayaamahan sidaas aan sameeyaa. marka weekii meeqa saacadood shaqeysaa? weekii waxaan shaqeeyaa ilaa 3 saac. markii hore yaa kugu dhaliyay fikradan inaad tagaasida u shaqeyso? waxay ugu dhalatay ilaa sanadkii hore ay ugu dhalatay laakiin sanadkan bilowgii 2016 bilowgiisa aan bilaabay. wallahi aniga ilmo yar haystaa wax ma soo baranin jaaniska oo ku fikir kaliya waxay ahayd baawur wadi kartaa marka ku shaqeysa baawurkaaga taas ay ugu dhalisay inaad taxi la noqdo. wadan burburaanka ka nimid marka fursadda way fiican tahay in la shaqeysto oo wax la qabsado wadankeena loo laabto. qof kasta shaqada wax ka fiican kulay ma jirto. qof gabar kasta waxaan ku aanin lahaa inay shaqeyso markaas ayada arki doonto waxyaalaha si sareeya ayada gaari doonto markaas. kulay hadda dad badan way shaqeeyaan laakiin waxaan dhihi lahaa dadka inay fakaraan wax qabsadaan shaqeystaan. qof kastana wax kasta waxa aaminsanay inuu sameyn karo wax inay isku dayaan wax qabsadaan maaragtay qof kasta ilmo haysta xitaa uu shaqeyn karaa. maya ani waqti badan bacayr ma qaadanaynin waa shaqeynaya ilmeyga u shaqeynaya shaqooyin kale ka shaqeynaya hadda shaqadaana waxa u fahmay inay iga fududahay shaqooyinkii hore. gabdhaha soo qaada cadaanka waxay dhahaan waa ku faraxsanahay inaan aragno gabar oo maaragtay anako kale oo taxi wado waxaan dareemeynaa kalsooniyaan dareemeynaa inaan maaragtay aan raacno naag taxi ee wado marka waxay dhahaan waa ku faraxsanahay. nimanka qaarkood waxay dhahaan maxaa ku dooratay shaqadan ninkaaga muxuu u balyahay kale su'aalahaas waa la weydiiyaa maaragtay marka waxaan dhahaa maaragtay wax kasta waa sameyn karnaa qof kastana wuxuu sameynayo waa qaban karnaa. hadda waxaad ku haminaysaa marka muxuu yahay? aad ugu faraxsanahay shaqadan aan qabanayo marka waxaan rabaa inaan sii wato intii